shirkad caan ah ayaa dadka ganacsatada iyo kuwa jecel dalxiisayaasha waxay u soo bandhigtay diyaarad helicopter cusub oo nooceedii hore aan loo arag. shirkadani oo fadhigeedu yahay magaalada Kassel ee dalka Jarmalka ayaa waxa ay soo saartay helicopter ku duulaya battery ama battery electric taasoo shidaal la'aan meel doonto kugu geenayo waxaana lagu magacdaray Volocopter. diyaaradani oo dhowr mar waaxad leh ayaa lagu wadaa inay iibsadaan dadka ganacsatada ah balse shakiga ugu weyn ayaa taagan haddii uu dabka bateriga ka dhaco xilli ay hawada ku sii jirto diyaaradani. inkastoo ay shirkadda ay sheegayso in uu jiro bateri kale ee lagu bedeli karo haddii kii hore dabka uu ka dhaco inta ay hawada ku sii jirto. intan ayaan ku soo gabagabanaya barnaamijkii maxaa cusub ee caalamka. barnaamijku waxaa idin soo saaray anigoo ah Cabdiraxmaan Sheekh Daahir. barnaamijkan oo kale inta dib damba ku wada kulmi doono waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.